samaynta muuqaaladu waxay ku bilaabataa qorshayn. marka hore dooro mawduucaaga si wanaagsan u fahan. si aad u fahanto samee pre-interview oo loola jeedo waraysi aan la baahinayn oo lala yeesho qofka sheekada ay ku saabsan tahay ama cidda xogta haysa. kadib qorshee sida muuqaalada aad duubaysid ay noqon doonaan. liistigarayso quoteska ama clipska ama hadallada aad ka doonaysid qofka sheekada haya. qoro nooca muuqaalada iyo goobta aad shaqada ku qaban doontid. shaqadaas waxaa la yidhaahdaa pre-production. tallaabada xigta waa production oo ah in aad muuqaaladii aad qorshaysatay soo duubatid, sourceskana ka soo qaadatid wixii xoga ee aad u baahnayd. marka aad intaas samaysid waxaa xiga post production oo ah inaad muuqaalka editgaraysid, skriptigaagii qoratid, dabeetana codka, muuqaalka iyo wixii sawirro ah ee aad u baahan tahay inaad saartid. muuqaalada waxaa u muhiim oo qurxiya codadka natural soundka loo yaqaan ama ambient soundka, kuwaasoo ah kuwa ka hadlaya dareenka waxa sheekadani ay ku saabsan tahay. haddii shaqada laga bilaabo production oo ah duubidda muuqaalada, waxaa hubaala in muuqaalkaasi uusan noqonayn mid wanaagsan oo soo saara filim ama barnaamij qurux badan. dhibaatada ugu horraysa ee aad la kulmaysid haddii shaqada aad ka bilowdid production oo ah soo duubidda muuqaalada waa in marka aad kombuyuutarka dul timaadid aad kala garan weydid halka aad sheekada ka bilaabaysid, muuqaalada aad qaadanaysid iyo waxa aad dul saari doontid hadalkaaga. muuqaalada la duubaa waxay u qaybsamaan 2 nooc oo kala ah A-roll oo ah muuqaalka asalka ah ama waraysiga qofka hadlaya, iyo B-roll oo ah muuqaalada supportka ah, kuwaasoo muujinaya ficilada sheekadu ay ka hadlayso. B-rollku waa muhiim sababtoo ah waxaa loo adeegsadaa dhowr arrimood. 1. waxaa loo adeegsadaa caddayn ahaan waxa laga hadlayo. 2. waxaa la dul saaraa meelaha transitionska ah ama halka muuqaalka laga jaray si aan loo dareemin kala go'a muuqaalka. 3. waxa uu kor u qaadaa xiisaha muuqaalka daawashadiisa, maxaa yeelay indhuhu waxa ay doonayaan inay arkaan daawashada muuqaallo kala duwan. ugu dambayn, qorshee inta aadan fulin.